قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحكور حديث كمعاوية بخاري مسلم باي وريين. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحكور حديث كمعاوية بخاري مسلم باي وريين. قفك إلهي سبحانه وتعالى خير والله دونه إلهي وحو فهم سيا دينته وحو وافتشيا إنه أسوء تشيستو برشد دينته إسلامك قرآن كريم كحديث كنبي عليه الصلاة والسلام iyo culumta kale ku caawinaysa khayrka lagu sheegay xadiidkan maaha khayr aakhiro oo qura waa khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro labadaba oo qofku inuu diinta bartaa waa mid hagaajinaysa adduunyadiisa waa mid hagaajinaysa aakhiradiisa oo badbaadinaysa oo inuu janno galo naarna ka badbaado sabab ugu noqonaysa xadiidkani wuxuu ku dhawaaqay khayrku qofka inuu kaga xidhan yahay barashada diinta islaamka inta aqoon diineeda ee ka maqan qofka muslimka ah waa in khayra oo ka maqan camalkeedii baa ka maqan waxa ka maqan cibaadadeedii waxa ka maqan akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii inta aqoon diineeda qofku uu hayo camal fal iyo dhaqanna uu raaciyana waa khayr qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystayo rabbi ugu nicmeeyey fiqiga la amaanayo ama barashada diineeda la amaanayo ee xadiidkan lagu sheegay waa barashada ay camal fal uu raaco sideedaba cilmiga la amaanay cilmiga shareecada la amaanay quraanka ama xadiidka nabiga lagu amaanay waa alcilmu alladhi yuslihu al-insan waa cilmiga qofka hagaajiya intiisa muuqata iyo intiisa qarsoon labadaba dhaahirahu wa baatinahu qalbigiisa saxee ka dhiga mid ku camiran iimaan alla ka cabsi weynayn ilaahay jacayl ilaahay u hayo jacayl u hayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinul islaam qadarin xishood qofku ilaahay uu ka xishoonayo oo qofku uu ka khajilayo ilaahay inuu ku arko xaalad aanu jeclayn waa cilmiga saxa qofka carabkiisa ka dhiga mid wax fiican uu ku hadla waa cilmiga saxa qofka xubnihiisa ee ka dhiga kuwa ku dhaqdhaqaaqa ilaahay waxa uu jecel yahay raali uu ka yahay isla markaa ka istaaga oo ka xanibma waxaan ilaahay raali ka ahayn xadiidku taa hadduu caddeeyey waxaa laga fahmayaa qofka aan diinta baran inaanu ilaahay subxaana wa tacaala khayr aanu la doonin oo barashada diinta ee ka maqani waa khayr qofka ka maqan waxaan leeyahay bulshadeenna dadkeenna waaweyn raggeenna dumarkeenna dhalinyarteenna hablaha inamada dhammaantoodba diinta barashadeeda walaalayaal aynu soo jeesanno maanta meel walba diintii waa lagu dhigayaa waxaa lagu dhigayaa jaamacadaha iskuullada macaahidda masaajidada madaarista iyo maraakista ma jira maanta qof cudurdaar u haysta inuu jahliga baaqi uu ku ahaado oo hadhow toole allah lama hortegi karo cidi barta ayaan waaye maanta meel walba waa lagu baranayaa u soo jeesta barashada diinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo wajazaakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu